السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa halkan inaan kugula wadaago 10 caado ama 10 dhaqan oo ay leeyihiin dadka guuleysta. dhaqanka koowaad ee dadkaasi leeyihiin waxa weeye waxay qaataan mas'uuliyadooda 100%. tusaale, haddii shaqo la qabto isla markaana shaqada lagu guuldareysto, ma eedeeyaan tiimkii la shaqaynayay iyo qalabkii la adeegsaday. waxayse eeda saaraan naftooda iyo inay qayb ka hayaan iyagu guuldarrada meesha ka dhacday. laakiin sida inta badan aadamuhu sameeyaan, isuma dayaan inay wixii la adeegsanayay iyo dadkii kale eedeeyaan, isla markaana iyagu ay iska dhigaan kuwa beriya oo aan guuldarrada qayb ka ahayn. qodobka labaad ee dadkaasi leeyihiin waxa weeye had iyo jeer waxay go'aansadaan waxa ay rabaan, isla markaana waxay ugu dhaqaaqaan sida ugu dhaqsaha badan, iyagoo aan ka labaclabacayn ama aan ka laalaaban ama aan ka jeesjeesan waxa ay u socdaan. ayay waxay rabaan markay go'aansadaan toos u abaaraan. qodobka saddexaad, wixii ay go'aansadeen waxa ay rumaysan yihiin inuu yahay wax dhici kara, waxayna rumaysan yihiin 100% shaygan inay ka dhabayn karaan. oo sida dadka qaar ma aha in wixii ay go'aansadeen ay ka warwareegaan ama ay marmar niyadooda gasho inaan waxaan wax dhici kara ahayn. iyagu dadkani waxay rumaysan yihiin waxay go'aansadeen 100% inuu yahay wax suurakala, waxaana ay samayn karaan. waana tii odhahdii ahayd, haddii maskaxdaadaba ay kusoo dhacdo waad samayn kartaa. waa odhaha uga cajiibsan. maskaxdaadaba shaygu hadduu kusoo dhaco waad samayn kartaa, siduu maskaxda ugu soo dhacay waad u samayn kartaa. marka qodobkaas saddexaad, waxay rumaysan yihiin waxa ay go'aansadeen inuu yahay shay ay ka dhabayn karaan. maadaama ay mas-uuliyadda qaateen, isla markaana ay doorteen waxa ay rabaan, isla markaana ay rumaysan yihiin waxaan ay rabaan ay doorteen inuu yahay wax suuragal oo dhici kara. qodobka afraad wuxuu noqonayaa waxay sawirtaanba guusha, oo guusha ayaaba maskaxdooda ugu sawiran, oo sawirkii guusha ayaaba maskaxda dadkani ku haystaan, isla markaana u muuqda farxadeeda iyo dabaaldegeeda ayaaba maskaxdooda kasii guuxaya maalinta la guuleysto. saa daraaddeed dadkani qodobka afraad waxay sawirtaanoo maskaxdooda ku jira sawirka guusha. qodobka shanaad, waxayba u dhaqmaanba sidii oo ay mar hore guuleysteen. qof mar hore guuleystay waad garanaysaa guushiisa wuu hubaa, oo waa guul oo reer uu arkayba. marka waxay u dhaqmaan qodobka shanaad sidii qof mar hore guuleystay ayay u dhaqmaan. qodobka lixaad ee dadkani ay leeyihiin waxa weeye dadka guuleysta ay leeyihiin waxay bixiyaan qiimo kasta oo uu ku kacayo goolska ay dhigteen ama ujeedada lahayn. qiimo kasta oo ku kacayo waxa qodobada hore oo dhan ay soo go'aansadeen ee shanta aynu ka soo hadalnay, qiimo kasta oo uu ku kacayo dadkan way bixiyaan. diyaar bay leeyihiin, hadday lacag tahay, hadday waqti tahay, hadday fikir tahay, iyo qiimo kasta oo uu ku kacayo diyaar bay leeyihiin dadkani arrintaa u leeyihiin. aan raahdo qodobka toddobaad, dadkani waxay dareemayaan cabsi. sida aadamuhu mar kasta oo uu wax ku cusub bilaabayo ama u socdo ama isbeddel uu sameynayo, naftu isbeddelka way necab tahay. sidaa daraaddeed cabsi badan baa markasta kugu gadaaman. markaa dadkani cabsida way dareemayaan. dadkuba dareemo markuu hawl cusub u dhaqaaqayo, laakiin si kastoo tahay way isu deeyaan, waana isu dirqinayaan. cabsiduna kama joojinayso waxa ay u socdaanay rabaan. saa daraaddeed cabsida la dareemi lahaa way dareemayaan, laakiin iyagoo cabsida way jiirayaan oo kama soo istaagayaane hore bay ugu soconayaan. qodobka 8, dadkani aan ka hadlayno dadka had iyo jeer guuleysta ama dadka guuleystayaasha ah waxay raadsadaan ma rartaan kaliya maskaxdooda, waxay raadsadaan dad la taliya oo mentorship ay raadsadaan. markaa dadkaa la taliya way inta badan talooyinka wanaagsan way qaataan, ma aha dad keliya taladooda rarta isla markaana siday la noqoto had iyo jeer ku dhaqaajiyo maaha, way u tala badsadaan oo waxay isu dayaan inay raadiyaan cid waxaan uga khabiirsan, cid talooyin ka siisa shayga ay ku dhaqaaqayaan, cid uga soo horreysay soo aragtay, iyo meel kasta oo laga raadin karo shaygan wixii kaa anfacaya iyo halkaad u mari karto way isu dayaan. markaa way u tala badsadaan. dadkani markaa waa dad talada dadka kale iyo talooyinka muhiimka aan ka boodin isu daya inay wax ka qaataan ama marka hore ay tala badan raadiyaan. qodobka 9 ee ay leeyihiin dadka guuleysta waa dadkani waa dad leh tamar aad u fara badan. dadkan tamar badan bay ku bixiyaan shayga ay u socdaan. markaa rabitaan badan iyo tamar badan bay leeyihiin, jacayl badan bay u hayaan shayga qabanayaan. saa daraaddeed bayna cidi ka hor istaagi karin.
tobnaad ee ay leeyihiin dadka guulaystaa waxa weeye waxay sameeyaan horumar joogto ah. waa dad isdhisa oo aqoontooda dhisa oo caqligooda dhisa oo jirkooda dhisa oo isdhisa weeye. markaa waxay sameeyaan horumar joogto ah, horumar maalin kasta waxay ku sii daraan oo dhinac walba ah, oo ku dhaqaale leh, oo ku nafeed leh, oo ku jireed leh, oo ku caqiide leh, oo ku cibaado leh. intaasoo dhan way sameeyaan. markaa horumarkaasi oo ay joogteeyaan bay sameeyaan, waana waxay dadka kale kaga horeeyaan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.